halkani waa iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca 2007 iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed waxa uu sameeyay horumar aad u ballaaran oo la dhinac kasta taasoo lagu horumarinayo dhinaca waxbarashada iyo waliba in kor loogu qaado tayada garaadeed ee carruurta iyo dadka waaweyn intaba. muuqaalkan idin baxay waa maamulihii iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca oo markaasi cashar siinayo arday Soomaaliyeed oo ka tirsan qaxootiga Soomaalida ee Sanca kuwaasoo ay da'doodu u dhaxaysa 5 ilaa 15. haddaba waxyaabaha uu gaaray ama dhaqdhaqaaqadii uu sameeyay iskuulka qaxootiga Soomaalida 2006-2007 ayaa runtii waxay ahayd mid aad iyo aad u sareysay iyadoo xataa xilligaasi ay jireen dhalinyaro ajnabi ah oo ka dhigay iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca. sida aad aragtaanba iskuulku waxa uu leeyahay qaybo fara badan oo dhinaca waxbarashada ku saabsan sida qaybaha Englishka, computerka iyo waliba qaybaha kale ee farsamada gacanta. Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Cali oo ah runtii macallin ka tirsan iskuulka qaxootiga isla markaasna maamulaha iskuulka ayaa waxa uu lecture dheer siinaya arday ka tirsan iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca kuwaasoo ardaydaasoo isugu jirta gabdho iyo wiilal oo runtii mustawahooda ama dhinaca aqoonta garaadkooduna ay aad u sareysay. inkastoo ardaydu aysan isku mustawa ahayn haddana inta isku mustawa waxaa lagu sameeyay in ay galaan fasal. muuqaalkaas hadda soo baxayo idin muuqdo waa Ustaad Axmed Maxamed oo ah ustaad wax ka dhiga ama macallin wax ka dhiga iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca. macallinkaasi wuxuu dhigaa maadooyinka Englishka, computerka iyo business administrationka ama maamulka iyo maareynta. Ustaad Axmed runtii waa ustaad Soomaaliyeed isla markaasna uu horay waqtigiisa ardayda qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca isagoo wax ku soo bartay magaalada Hindiya ee dalka. muuqaalkani waa ardaydii iskuulka qaxootiga qaybta fasalka 8aad oo runtii maalinkaasi dhageysanaysa casharadii iskuulka ka baxayay oo ay waliba markaasi ay kadibna ay gali doonaan imtixaan. muuqaalkan kale ee hadda idinku soo baxayo waa gabadha la yiraahdo Sara oo ahayd macallimad u dhalatay waddanka England oo runtii markii ay aragtay baahida dhabta ah ee loo qabo waxbarashada iyo waliba in ay la heli karo dhalinyaro Soomaaliyeed oo u jajaban waxbarasho ay halkaasi ka soo tagtay kadib markii ay daawatay fiidiyool fara badan oo aan ku shaacinay internetka ama YouTube-ka kadibna ay soo raadisay iskuulkii halkaas oo ay runtii ay muddo 7 bilood ay ka bixinaysay xisooyin. Ustaad Sara oo markii ugu dambeysana ka dhooftay waddanka. hadda waxaa idin soo socda waxa weeye ama aad arkaysaanba waa qaybta computerka. waxaa halkaasi jooga oo ama bixinaya casharadaasi Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Cali waa maamulaha iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca isaga oo markaasi siinaya ardayda casharo dhinaca computerka ah oo isugu jira softwareka iyo waliba hardwareka. laakiin sidana markan muuqato waa xiso software ah oo ay ardayda baranayaan. muuqaalkani waa macallimiintii iskuulka qaxootiga gabi ahaan oo isku soo sawirtay iyo waliba arday ka tirsan isla iskuulka. Ustaad Boodboode waa macallin ka tirsan iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca waxa uu wax ka bixiyaa ama wax u dhigaa dugsiyada hoose isaga oo dhiga maadada xisaabta iyo Englishka. waxaa kaloo asna barbar fadhiya Ustaad Daacad oo ah macallin ka tirsan iskuulka qaxootiga oo isagana wax ka bixiya maadada Carabi iyo diinka iyo afka Soomaaliga. aan ku soo laabanay waa Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Cali oo runtii bixinayo lecture dhinaca computerka ah oo ku saabsan internetka iyo qaabka markaasi qofka uu u sameyn karo website ama wax la yiraahdo webmaster taasoo ardayda runtii ay aad iyo aad u cajab gelisay xilliga ay socotay sharaxaada. ustaadka wali waxa uu bixinayaa casharadii isaga oo si aad u gudo galay ayaa ardaydu waxay ku wada mashquulsan yihiin qaabkii ay u sameyn lahaayeen web muhiima oo markaasi ay ku shaacin lahaayeen afkaartooda iyo waliba aragtida garaadkooda waxa uu ka qabo dhinaca tayada tacliinta iyo waxbarashada intaba. waxaa hadda idin soo bixi doono arday Soomaaliyeed oo isku diyaarinaysa in ay berrito ay tagaan xarunta caafimaadka weyn ama isbitaalka weyn ee la yiraahdo Mustashfa Jamhuuri ama Tawra
mustashfar jamhuuri iyo towra waxa ay tababar u fidiyeen ardayda iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed kuwaas isugu jira wiilal iyo gabdho ayna ka istifeen dad fara badan. waxaa hadda inoo muuqda waa Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Cali ee qaybtii kombiyuutarka oo markan bixinayo cashiro dhinaca programming ah sida barnaamijka loo yaqaano Oracle oo nooca la yiraahdo i8. Oracle-ka waxa uu ka tirsan yahay programming-ka waxaana loo yaqaanaa SQL+ ama wax la yiraahdo Structured Query Language oo runtii waxbarasho tayo leh iyo waliba mid la dhihi karo waxa uu aaya mustaqbalka. waxaa hadda idin soo bixi doono Ustaad Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo arday ka tirsan iskuulka qaxootiga oo markii ugu dambeysay su'aalo weydiinayo. Ustaad Maxamed waa macallin wax ka dhigay iskuulka qaxootiga isla markaasna dhiga maadada loo yaqaan Carabiga iyo xisaabta. Ustaad Maxamed waxa uu ka mid yahay macallimiinta sida weyn uga soo shaqeysay iskuulka qaxootiga ilaa ay haddana ka shaqeeya. waxa uu ardayga fahamsiinayaa cashirkii uu qaatay. waxaa hadda idin muuqanayo mar kale waa Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Cali oo runtii bixinayo maadooyin dhinaca internetka ah oo ardayda ku siinayo si bilaash ah ama si majaanan ah. arday kasta oo ka tirsan iskuulka qaxootiga waxa uu xaq u leeyahay inuu helo. waa Ustaad Maxamed oo bandhigaya ama dacayad ka bixinaya iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed isku sawiray boorkiisii taasoo ay ka muuqato farta Carabiga iyo Englishka. haddaan isku dayno inaan aqrino halkani farta Carabiga waxay ku bilaabmaysaa lajnat raayat masaalix Soomaal oo shu'uun jaaliya madrasada laajiin Soomaaliyiin bisanca oo ah macna iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca. muuqaalka hadda idin soo baxayo waa ardaydii oo sameynayso maalin khamiisa practical ama ku noqosho cashirkii hore ee lasoo dhaafay ee lasoo qaatay taasoo ay xaq u leeyihiin in ay sameeyaan sidii ardayda markaasi u fahmi lahaayeen waxyaabihii kal hore ee ay qaateen. ardayda maalin kasta oo khamiisa waxa ay sameeyaan ku celis cashirka kii hore ah iyadoo kadibna maalmaha jimcaha iyo jimcuhuna ay iska nastaan ardayda oo gebi ahaanba ay tahay maalin nasasho sida u diiwaan gashan wadamada islaamka ama muslimiinta. si kastaba ha ahaatee waxaa intaas hadda waxaan arki doonaa ama noo soo geli doono ardaydii iskuulka qaxootiga oo raajicinayso barnaamijkii tacliinta iyaga oo markaasi berrito kusoo foolle imtixaan. arday kasta waxaa ka muuqata runtii niyad jab la dhihi karo iyo weliba fakir dheer isaga oo markaasi isweydiinayo maxay noqon doontaa berrito imtixaanka iyo maxaa lagu keeni doonaa oo su'aale. ardayda inta badan waxay dhex mushaaxayeen waxyaabahaas aan hadda soo sheegnay ama aan kor ku soo qeexnay inkastoo aan la garanaynin sida ay ardaydaasi u baasi doonaan. daawadayaal iyo dhegeystayaal waxaan soo gaarnay gunaanudkii iyo gabagabadii barnaamijkii iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed. runtii iskuulka Soomaalida wuxuu ku yaalaa sida aan hore idinku sheegnay xaafadda Saafi Jawla. emailka iskuulku waa somalirefugeesschoolyemen@hotmail.com. iskuulku wuxuu kaloo leeyahay website ayuu leeyahay. telefonku waa 77364984. qof kasta oo danaynaya ama xiiseynaya in uu wax ka geysto iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca wuxuu nagala soo xiriiri karaa ciwaanadeenaas xagga dambe ku waxaysan. maamulka iskuulku waa Master Cabdulqaadir Maxamed Cali. runtii waxaa barnaamijka maantay aanu aad u jeclaysanay in aanu ku shaacino dhalinyarada ama aanu fahamsiino dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay yahay barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono ee ku saabsan dhinaca tacliinta waxbarashada. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. weliba arday kasta ee ka tirsan